hadda ka hor waxa dhacday in ayaa mar walba waxa uu dili jiray xaaskiisa sidii uu u dili jiray ayaa maalinkii dambe si kadis ah ku dhimatay isaga oo garaacaya ninkii waxa uu ka baqay in gabadhu reerkooda ay ogaadaan oo ay ka argoostaan isna nafta dhaafiyaan waxa uu ogaaday nin magaalada joogay oo ahaa nin dhagar badan ninkii ayuu u tagay waxa uu ku yiri xaaskayga ayaan dilay waxaan ka baqayaa haddii la ogaado in la dilo waxaan ka rabaa talo oo waxaad ii sheegtaa wadada aan ku badbaadi karo ninkii dhagarta badnaa ayaa yiri waxba ha walwalin oo ha cabsan xal waa la hayaa dilaahi xaaskiisa dilay oo faraxsan ayaa yiri maxay tahay xalka dhagar badanihii ayaa yiri waxaad fadhiisantaa iridda hore ee gurigaaga halkaas waxaad ku sugtaa nin dhalinyaro ah in uu soo maro kadib inta aad u yeerto waxaad ku tiraahdaa marti ayaad ii tahay oo aan ku martiqaadayaa hore u soo dhaaf oo guriga soo gal kadib markii uu soo galo guriga intii aad gadaal ka marta dil oo nafta dhaafi kadibna agdhig meydka xaaskaaga intaas kadib waxaad u yeertaa reerka xaaskaaga oo waxaad ku tiraahdaa dhibkan ayaa dhacay oo ninkani waxaan ugu yimaaday isaga iyo xaaskayga oo qol wada jiifaa